Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu sheegay in dawladda ay diyaar u tahay bixinta mushaaraadka shaqaalaha dawladda oo shaqaale walba oo dawladda u shaqeeya uu heli doono mushaarkiisa si joogto ah. Waxa uu sheegay inay jiraan dad mushaar qaata haddana aan soo shaqo gelin aysan xaq u lahayn qaadashada mushaarka dawladda. Wasiirka Maaliyadda waa shaqadiisa in qof walba mushaar uu siiyo. Ra'iisul Wasaaraha waa shaqadiisa inuu hubsado in qof walba mushaar uu siiyo. ما عن دولتنا إن هدف كذا يا المشار لبحي دولتنا هدف كذا وكوي المشار لبحي لكن مركو على واحد روانا هذه شيء السنة كدوات كور أيان هرتي نكشة إن هدف كي دولة ذا يتهاي قفل بو دولة دو شقية إن مشار لسيو قفل بو مشار لسينا أيان وياي قف دولة دو شقية لبي توم بلاد وزارة المالية وزيركي وكوا ماني هايستغو ويكسب بحذي إن مشاركين الإنسيو تدار والبول الله صوب قلي لكن وعن رواينا أن تنقلك صوبا هذه هذوك دولة نقاله هذو وولي كبعية وولي هاي قرقورة هدي هذوك إن قف مشار قادته يدون دولة دول شقين هدي هذوك إن سيد هذوك أتصوك الله هذا قف عن صوك الله إنه جرا بيشنا فرين تقصر دعوة إيه جرا يقصر دعوة وكسونو إن الدنبيلة أمانة الدلكة يلعك تيار ولا قصة قاضي canshuurta ay bixiyaan ganacsatada yahoyooyinka jidadka alaabta ku gala oo lagu bixiyo mushaaraadka iyo kharashaadka dawladda waxa waajib naga saaran yahay inaan ilaalino. Nasteex Abdulqaadir Xasan, Kalson TV, magaalada Muqdisho.